kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa Cadaada Media Group ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan idin haynana waxa ugu waaweyn koox hubaysan oo goordhow gudaha magaalada Muqdisho dil ka geysatay haddaba shakhsiga dilkani loo geystay ayaan idin la wadaagi doonaa xogo ku saabsan iyo sababta dilkani ka dambeysay Jubaland oo ciidamo ku daabulaysa xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya muxuu yahay ujeedka ciidamadan maxaase laga damacsan yahay macluumaad ayaa idin kaga haynaa Mareykanka oo sheegay duqeymo ay fuliyeen inay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab warbixinta Mareykanka oo soo daabacay iyo sidoo kale saameynta duqeymahaasi ka dhashay ayaan idin la wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan waxaa sidoo kale daawan doontaan waqtiga uu xilka la wareegayo Maxamed Binu-salman boqortooyada dalka Sacuudigana uu gacanta ku dhigayo oo la shaaciyay haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa Soomaaliya warbixin arrimahaasi la xiriira ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka Cadaada Media Group markale kulanti wanaagsan waan ku soo dhaweynayaa daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dhawr kuma kadibna fura gambaleelka had iyo jeer waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno aynu ku bilowno warka Cadaada Media Group warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil goordhow askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska loogu geystay isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dilkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxa fuliyay rag ku hubaysan bistoolado sida ay xaqiijiyaan dad goobjoogayaal ah wararka ayaa waxay sheegayaan in askariga uu ku geeriyooday isla goobta iyadoona ay baxsadeen raggii dilkiisa geystay sidoo kale wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ay gaareen goobta uu dilka ka dhacay kuwaasi oo meydka marxuumka goobta ka qaaday baaritaanana bilaabay ma jirto weli wax faahfaahin ah oo laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ay ka baxiyeen dhacdadan iyo sidoo kale cid loo soo qabtay intaba dilkan ayaa sidoo kale qayb wax uu ka noqonayaa falal ammaanka lidii ku ah iyo dilal qorsheysan oo loo geysto ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kana dhaca gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa sidoo kale dilku ku soo aadaya iyadoo inta badan caasimadda dalka amnigeeda la sheegay in la adkeeyay isla markaasina ciidamo fara badan la soo dhoobay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si looga hortago weeraro laga fuliyo gudaha magaalada dhankooda al-shabaab oo lagu eedeeyo dilalka noocan oo kale in ay geystaan wali wax war ah kama aysan soo saarin dilkani loo geystay askariga ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya qaybihii hore ee warka Cadaada Media Group ayaa daawanaysan wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay Jubaland ciidamo dheeraad ah ay geysay Xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya ciidamadan oo wata gaadiid dagaal ayaa fariisimo cusub waxay ka sameysteen deegaanka Diif oo dhaca soodinta labada dal sida xogaha aynu helayno ay sheegayaan ila deegaanka ah oo lagu kala soon yahay ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamada saldhigyo cusub ay ka sameysteen halkaasi isla markaasina ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo cusub oo ay doonayaan halkaasi inay ka sameeyaan sida aynu xogta ku ogaanay ujeedka ayaa waxa uu yahay sidii ciidamada Jubaland ay ku gaari lahaayeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan kuwa ay haystaan al-shabaab oo wali dagaalka kula jira ciidamada huwanta arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu haatan ku sugan yahay magaalada Dobley oo ay ka wadaan amaba uu ka wado abaabul xoogan kaasi oo dhawaan shaaciyay in qorasho uu yahay gacan ku dhigista caasimadda Jubaland ee Bu'aale muddooyinkii la soo dhaafay ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo waxa al-shabaab ay ka wadeen dhankooda deegaano ka tirsan Jubaland gaar ahaan gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya Jubalandna waxay sheegtay in arrintaasi ka duuleyso dhinaca kale warar ayaa sheegaya in ciidamada Jubaland ee dhinaca xuduud ka gaaray in ay doonayaan in halkaasi abaabul ka sameeyaan si ay kaga hortagaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee weerarka ay kula galeen beled xaawo isla markaasina ay ka go'an tahay ciidamada dawladda inay gacanta ku soo dhigaan wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan taasina ay tahay mid ay ka duulayaan ciidamada Jubaland
dowladda Kenya ayaa lagu eedeynayaa in ay taakuleynayso oo gacan siinaysa ciidamada Jubaland waxaana isu soo taraya dhinaca kale baaqyada loo jeedinayo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kuwaas oo kaga imaanaya dalalka caalamka xildhibaanada baarlamaanka Kenya siyaasiyiinta Kenyaanka iyo culamaa udiinka dalkaasi Kenya oo ugu baaqay inuu faraha ka laabto arrimaha Soomaaliya isla markaasina uu u daayo danaheeda Soomaaliya waxayna ku eedeynayaan in faragelin uu ka wada gudaha Soomaaliya ciidamada Kenya ee ka howlgala gudaha Soomaaliya waxaa la sheegay in marar badan ay falal dambiyadyo ka geysteen gudaha Soomaaliya waxaana culamaa udiinka xildhibaanada siyaasiyiinta iyo dalalka caalamka qaarkood ay ugu baaqeen madaxweynaha Kenya in ciidamadiisa uu kala baxo gudaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mar uu ka hadlayay arrimaha xiisadda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta isla markaasina loo baahan yahay in ujeedkooda rasmiga ah ee loo idmaday nabad ilaalinta ay ku joogaan gudaha Soomaaliya ha yeeshee aysan faragelin u bedelin dowladda Kenya madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalmaha soo socda waxay ku ballansan yihiin in kulan ay iskugu tagaan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya kadib markii casuumaad ka socota madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ay soo gaarsiiyeen madaxweyne farmaajo wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka kulankaasi intiisa badan waxaa la filayaa in lagu falanqeeyo isla markaasina lagu gorofeeyo xaaladda siyaasadeed ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliyana waxay ku eedeysay dowladda Kenya in faragelin ay ku hayso dhulkeeda taasi oo ay ku dhawaaqday in dacwad ka dhan ah dowladda Kenya ay u gudbin doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay Kenya oo arrintaasi walaac xoogan ka muujinaysa ayaa doonaysa in iska qanciso Soomaaliya isla markaasina arrinta aysan dacwad doonin horay war uga soo baxay Kenya waxay ku sheegtay in Soomaaliya duulaan iyo faragelin qaawan ay ku soo qaaday dalka Kenya isla markaasina Cabdirashiid Janan iyada oo ku soo gambanaysa ay doonayso inay faragelin ka samayso gudaha dalka Kenya si kastaba kulankaasi ayaa la filayaa kadib marka labada madaxweyne ay yeeshaan in warmurtiyaad laga soo saaro kaasi oo lagu eegi doono balqaabka loo xaliyo xaaladaha siyaasadeed ee xilligan ka dhaxaloosan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya qaybihii dhexe ee warka Cadaada Media Group ayaynu isla soo gaaray taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa waxay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen duqeyna diyaaradeed oo shalay gelinkii dambe ay ka geysteen gobolka Shabeellada Hoose qoraal ka soo baxay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ay si wada jir ah u faliyeen ciidankooda iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta cusub lagu qareejiyay ilaa iyo 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab Mareykanka ayaa sidoo kale intaasi waxay ku dareen in uusan jirin khasaarada darayada ka soo gaaray walow mararka qaarkood la soo wariyay khasaaro badan oo ay geystaan waxay ku soo aadaya war-saxaafadeedkan ay soo saareen Africom ay ku sheegayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab in ay ku dileen duqeyntaas xilli dowladda federaalka Soomaaliya war dhankeeda ay soo saartay ay ku sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeymo ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka xubno ka tirsan Al-Shabaab qaybihii ugu dambeeyay ee warka Cadaada Media Group ayaynu isla soo gaarnay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed Binu-salman oo dhawaan bilaabay inuu xiro amiirada uu u arko inay halista ku yihiin ayaa isku diyaarinaya inuu noqdo boqorka dalka ka hor bisha November ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2020 markaasi oo magaalada Riyadh lagu qabanayo shirka dalalka G20 ila wareedyo lagu kala soon yahay ayaa wargeyska Middle East Eyes waxay u sheegeen in Maxamed Binu-salman uusan sugi doonin inta Aabihii boqor Salman uu ka geeriyoodo sababtoo ah wax uu rumaysan yahay in joogitaanka Aabihii ay siinayso sharciyada sidaasi darteed Maxamed Binu-salman ayaa ku qasabi doona Aabihiisa oo xasuusta si luminaya balse sidiisa kale caafimaad qaba in uu ka tanaasulo xukunka kuna wareejiyo sida ay sheegeen ila wareedyadan lagu kalsoon yahay tani waxa ay soo gaban doontaa shaqadii uu Maxamed Binu-salman bilaabay 2017 markii uu ina adeerkiisa ka weynaa Maxamed Binu Nayif si awood leh ugala wareegay jagada dhaxal suganimada
waxa uu doonayaa inuu xaqiijiyo inta aabihiis nool yahay in uu noqdo boqor ayuu yiri mid ka mid ah ila waraadyada sida weyn looga soo xigtay warkan ka hor inta aan la xirin amiir axmed binu cabdulaziis oo ahaa walaalka ka yar boqor salmaan ayaa la siiyey fursadii ugu dambeysay oo ahayd inuu ku soo biiro mashruuca maxamed binu salmaan ha yeeshee waa uu diiday kadibna xabsiga ayaa loo taxaabay axmed waxaa la saaray cadaadis xoogan oo ah inuu taageero Binu-salman waxa uu la kulmay boqorka waxaana loo sheegay in uu taageero wiilkiisa ayuu yiri mid ka mid ah ila waraadyada warkan laga soo xigtay oo magaciisa la qariyay axmed waxa uu boqor Salmaan u sheegay in isaga shaqsiyan uusan doonaynin in uu boqor noqdo balse uusan taageeraynin Maxamed Binu-salman ayaa sidoo kale ila waraadka warkan laga soo xigtay la sii raacsiiyay si kastaba bisha November ee sanadan aynu ku guda jirnay ee 2020 xilligaasi oo shirka G20 uu dhici doono ayaa la filayaa in xukunka si toos ah uu la wareego Maxamed Binu-salman